Somaliland iyo Soomaaliya waxay kala taagan yihiin nimayo kala quusanay aan kala qoomamo laano waa moorta ay ku saabsan tahay faaladana warku waana qalinkii Cumar Maxamed Faarax Jamhuuriyadda Soomaaliland 230 sanadood ka hor ayay ka baxday midowgii Soomaaliya oo ay madaxbannaanideedii gooli ula soo noqotay markii qalbi samaantii midowgii ay reer Soomaaliland horseedka ka ahaayeen uu dhalay burbur iyo hagardaamo tan iyo 1990 Soomaaliland waxa ay u tafahaydatay inay sagxadda ka soo dhisto dal si cadowtinimo loo burburiyay waxayna ku dadaashay inay aqoonsi la'aan isbixiso Soomaaliyana waxay safka hore kaga jirtaa 230 sanadood qaarad guul daraysatay waxaana noqotay yabo ku nool dawladnimadeedu taay rag weyday waqtigaasi rubco qarniga ka badan Soomaaliland marna kamay mid noqon doonto dawladaha shisheeye oo dhiso Soomaaliya waxa ay Soomaaliland leedahay marka laga hadlayo Soomaaliya intii hore ayaa dib noogu filan iyo muuminka god laba jeer lagama wada qaniino madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa khudbadii wasaaradii ka jeedinayay Garowe waxa uu ku sheegay in aanay Soomaaliya dastuur dhameystiran yeelanayn inta Somaliland maqan tahay taasi oo ka dhigan dhalanteed iyo in Soomaaliya aanay doonaynin inay dawlad ahaato marka ay sheeganayaan Somaliland oo godkii madooba ka soo tashatay 230 sanadood muddo laga joogo sidaasi daraadeed Siciid Deni iyo qeyrkiiba Somaliland afkooda ku soo noqon mayso hasaate waxa uu dhawaaqoodu ka turjumayaa sida aanay dawladnimo iyo xasilooni uga dhaweyn Soomaaliya oo iyadiiba sidii tusbax furmay u sii kala jabaysa Jamhuuriyadda Somaliland waxay Soomaaliya wada hadalka labada dawladood ula furtay sanadkii 2012 sidii ay Hargeysa iyo Muqdisho u noqon lahaayeen dawlado walaala oo isgarabsada waana kaas aragtida Somaliland ay ka leedahay wada hadalkaasi istaagay Siciid Deni oo afku ka bartay Somaliland waxa uu cambaarayn doona duulaanka ugu soo qaaday Laascaanood marka firxadka ciidankiisu Garowe kabalaan ugu galaan ugu dambeyn موقفka aan doorsoomayn ee Somaliland ka taagan tahay Soomaaliya waa mid la mid murtidii laga guntay abwaan Faarax Nuur Ilaahay ha u naxariistay ee ahayd nimayo kala quusan ee aan kala qoomamo laano intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray Cumar Maxamed Faarax waxaana idin la socodsiinaya anigoo Saib Cabdi Goole